mubaarak aar waxa weeyaan telefoon dawladeedna muu garaacin oo xeera mid diidayna muu garaacin telefoon waxa weeyaan saldhig yaalun buu garaacay dhibaatada falastiin ka socotay ee Netanyahu geystay iyo dhibaatada Xasan Sheekh Maxamuud waxa weeyaan shalay toole intuu dad shacab guriyahooda ka raray waxna laayay waxna barakiciyay waxna waxa weeyaan dhaawacay dhibaatada Sacuudiga uu ka geystay waxa weeyaan Yemen saddexda dhibaato waxay ku kala duwan yihiin ma jirto waa saddex dhibaato isku mid ah anagu si isku mid ah saddexda dhibaato oo cambaarayna shacabweynaha reer Somaliland waxaan ku hambalyeeynaya iyo madaxweynaha qarankaba waxa weeyaan aqoonsiga waxa weeyaan inoo yimi waxa weeyaan hawsha hambalyaan leeyay mar labaadka waxa hawsha horta ka hinaasay dawladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh dawladdiisa waxa weeyaan soddonka sano waxa weeyaan chapter 7 waxa weeyaan ku jirtay beesha caalamku waxa weeyaan siyaasadooda amni gacanta ugu hayso siyaasadooda dhaqaale gacanta lagu hayo marka ugu horeysa hartu Somaliland iyo dadka tashaday waxa weeyaan in waxa weeyaan ay ama wax ka sheegaan ama ay wax ka duraan waxa ka horeysa marka hore in iyadu is xoreeyaan waxa weeyaan ururka shabaab shan gobol buu ka haystaa taani waxa weeyaan anaga waxba naga sheegin iyagu horta ay soo xoreeyaan Somaliland idinku mashquuli mayso iyo kuna mashquulsana hawsheeda iyo go'aankeeda bari hore gaadhay way wadanaysaa way wada doontaa ilaa waxa weeyaan tan ilaahay ka laalaabanayo midda labaad dadka qalad fahansan xiriirka Israa'iil iyo Somaliland waxaan doonayaa in hal mid aanu jilciyo Somaliland marnaba waxa weeyaan miisaska caalamka waxa weeyaan lamay tagin in ay dad la laynayo waxa weeyaan ku dawarsatay tiraahdo aqoonsigu siiyana dad la laynayo waxa weeye shucuurka bini aadanimo iyo ka dadnimo midnaba ma Somaliland iyo shacabkeedu waxa weeyaan waxyeelada qofka bini aadanka waxa weeyaan qof islaam iyo qof kale loo geysanayo marnaba raali waxa weeyaan kama dhibaatada Falastiin ka socotay ee Netanyahu geystay iyo dhibaatada Xasan Sheekh Maxamuud waxa weeyaan shalay toole intuu dad shacab guriyahooda ka raray waxna laayay waxna barakiciyay waxna waxa weeyaan dhaawacay dhibaatada Sacuudiga uu ka geystay waxa weeyaan Yemen saddexda dhibaato waxay ku kala duwan yihiin ma jirto waa saddex dhibaato isku mid ah anagu si isku mid ah saddexda dhibaato oo cambaarayna qodob marka ugu horeysa dadku taa fahmaan Somaliland Israa'iil way aqoonsatay Israa'iilna Somaliland bay aqoonsatay waa inta waana si wadayna jin hadduu dawladnimo samaysto una aqoonsado anaguna waa aqoonsanay inta waxaan ku darayaa shalay toole fariiqan mubaarak aar saaxiibkaya madaxweyne jaamacadeeda ayaa hadlay doodiisu run ahaantii shalay toole waa jannay ma yahayn dood asal u ah waxa weeyaan xeerarka iyo nidaamka dawladnimo dastuurkaana marjac uma ahayn Falastiin haddii u doodayo hab diineed ugu doodayna waxa weeyaan aayad soo muuqaado doodiisu dhinac diineed iyo dhinac waxa weeyaan dawladeedba waa ka jabnay mubaarak aar waxa weeyaan telefoon dawladeedna muu garaacin oo xeera mid diidayna muu garaacin telefoon waxa weeyaan saldhig yaalun buu garaacay waa muwaadin reer Somaliland fikirkiisa haddii uu cabirtay waxa weeye xaq wuxuu ahaa talaabada laga qaaday waxa weeyaan dawladnimada iyo nidaamkeedu baa waxa weeyaan ayaa hawsheeda ka fulshay waxa weeyaan ka fusho doonta waxa weeyaan iska soo baxay shacabka reer Somaliland madaxweynuhu wuxuu yiri aniga aqoonsiga igu daaya adinkuna arrimiina gudaha waxa weeyaan dhamaysta waxa maanta ka midaysanahay waxa weeyaan waxa laaliya wixii gudaha yaga aan dhamaysano Somaliland ka wada shaqeyso madaxweynuhuna arintu ballan qaado uu si wado iyadana waa nooga fadhiyo